ururka samafalka ee Abu Huraira Charity Organization oo kamid ah ururada dhinaca samafalka ee ka howlgala deegaanada Somaliland waxay maalintii shalay deeq biyaa gaarsiiyeen isbitaalka dhimirka ee Geeska Afrika taasi oo ay ugu tala galeen dadka xanuunsanaya halkaasi ku jira. Ayaan Cismaan Yuusuf gudoomiyaha ururka Abu Huraira Charity Organization ayaa iyadu xustay deeqdani iyo sida ay mar walba ugu diyaarsan yihiin inay dadkooda garab ay u noqdaan. maanta waxaanu joognaa xaruntii isbitaalka Geeska Afrika ee Masallaha ee Gaaroodi ayaanu joognaa oo la furayo qaybtii haweenka waxaan ku soo marti qaaday gudoomiyaha iyo tiimkeeda gudoomiye Sahra iyo tiimkeeda na soo marti qaaday waxaan sidoo kale sidnaa laba booyadood oo biyo ah sida arkaysaan oo Abu Huraira ugu deeqay waxaan u rajaynayaa in tiimkan halkan ka shaqeeya isbitaalka dhimirka ee hogaaminayso gudoomiye Sahri in Ilaahay subhanahu wa ta'ala hawl weyn bay hayaan hawsha Ilaahay u sii badbaadiyo oo insha Allah gacmaha la isqabsado hawsha ay hayaan Ilaahay ku astro halkaana laga sii wado insha Allah khayrka la wado dadkeenana loo kaco kulay dayarteena baynu u taaganahay habeen maalin marka insha Allah anagoo ka Abu Huraira anagoo gudoomiye ururka Abu Huraira waxaan ballan qaadayaa intaan noolahay insha Allah inaan ka warhayo goobtan aan joogno insha Allah dhakhtarka ee isbitaalka dhimirka ee Geeska Afrika insha Allah waxaan ku soo dhaweynayaa laga gudoomi doonta insha Allah labada booyadood gudoomiye Sahra dhammaan waan idin wada salaamayaa oo goob habeen maalin noo taagan oo runtii dadkooda dayarta ah aad u salaamayaa waxaan sidoo kale aan salaamayaa hawlwadeenadayda bacadka ila taagan mar walba ayaan iyagana salaamayaa ee Abu Huraira maanta waxaan la joogaa Abu Huraira nagala joogtaa gabadh nagu qaaliya ayaa iyadna nala joogtaa oo la yiraahdo Saado Yuusuf iyo hablaheedii ayaa nala jooga ma sha Allah tabarakallah deeq bixiyaashay kamid tahay ugu waaweyn la dhabarta ah waan ku soo dhaweynaynaa Hargeysa iyo maxaan ku dhahay hawshan maanta ay nagala soo qayb gashayba aad iyo aad noo salaamaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Maamulka cisbitaalka maanka ee Geeska Afrika ayaa si weyn u bogaadiyay ururka Abu Huraira Charity Organization ee iyagu deeqdani soo gaarsiiyay. waxa maanta farxad iyo sharaf ah Ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu mahadnaqaynaa inayna soo booqdeen walaalaha iyo Abu Huraira Foundation ee gudoomiye Ayaan Cismaan Yuusuf iyo tiimkeedii qaaliga ahaa iyaga oo noogu deeqay laba booyadood oo biyo ah runtii tiimkani ma aha markii ugu horeysay deeq noo keenaan waa markii labaad ee ay noogu deeqaan maaragtay deeq adduun ay noogu deeqaan xoolaha noqoto ama biyaha noqoto iyo wixii lamida ama dharba ha noqotee aad baan ugu faraxsanahay hablaha yaga qaaliga ah garabka yaga midig mar walba nagala warhaya dhakhtarka iyo baahiyihiisa aad baa u mahadsantihiin aad baan u salaamayaa ugana gudoomiye Ayaan dhammaantiin aad baan idin wada salaanay assalaamu calaykum waana idinka gudoonay biyahaas dhammaantiin jasaakumullahu khayran jasaa wa ahsanallahu ilaykum wa alaykum assalaam warahmatullahi wabarakaatuh. Abu Huraira Charity Organization ayaa gacanta ku haya dad badan oo agoona waxa kale oo ay kaalin weyn ka qaataan quudinta dadka danyarta ee ku nool deegaanada kala duwan ee Somaliland iyadoo xarunta ugu weyn ay ku taalo gudaha magaalada Hargeysa. Maxamed Cabdi Qalinle warbaahinta dawladda Hargeysa.